asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu kulanti wacan wanaagsan meel kastoo joogtaan iyo si walbood ila socotaan buu walaalaha ku xiran channelka dhaqankaaba waan idin salaamay dhammaantiin waxaan idin rajeynayaa inaad wacantiin inaad wanaagsan tihiin salaan qaali iyo gobeedna waan idin soo dirayaa intaa kadib maanta dee ilmaha iyadoo la xambaarsan yahay ayaa arigii la raacayaa awl islaanta iyadoo kaligeed bay ariga meelaha carcara jirtay maanta aniga ilmahayga yarkaa ayaa arigii raacayna muuqaalkan waxaan ugu talagalay waxyaabo badan gabdhaha Soomaaliyeed inay ka faa'iidaan sida hooyooyinka marka hooyo ayaan matalayaa hooyooyinka marka iyagoo ilmihii xambaarsan inay arigii ku raacaan marka insha Allah muuqaalka waad ila daawo doontaan walaalahana aad iyo aad baan ugu mahadcelinay mar walba ila socda iyo fariimihiina quruxda badan marka dhulkii hawdka ahaa ama dhulkii ciidka ahaa meesha marka muuqaalkan ka duubanay waa gobolka Doolo ismaamulka Soomaali galbeed marka galabta halka ayaan arigayga ceyrsanayaa daawasho wacan ama ka bogasho wacan asxaabta qaaliga ariga waa kana ma sha Allah waan helnay intaan hawdka ay ku dhex jiray waxa la sameeyaa marka dhulku sidaan kala xogaa uu dhir badan yahay korba laga soo wareega yaani sidoo inuu ariga raadkiisa kala u raacdo inuu ariga kala goosmay ama kala lumay waa halka koraan ka soo qortay korbaan ka soo maray marka ariga daraftii xagga xigtay ama geeskiisii xagga iga xigtay waatana ilaa iyo halka uu daaqaya gurigiina xaggaas uu naga jiraa insha Allah marka cabaar baa halka noo daaqaya kadibna sida ayaa guriga loogu rogayaa marka hadii arigi waa ila jirtiin nuunaha yarkaani oo wata ma sha Allah nuunahana intaan ka soo maqnaaban umulay ama dhalay marka ma sha Allah asxaabta qaaliga horta waxa ilmaha yarkaan u soo xambaaray waxay tahay inta badan horta xambaarkan waxa xambaarka dad badan lagu soo koriyay hooyooyinkana nagu soo barbaariyeen nagu soo qaadeen waxa jira marka hooyooyinka magaalada jooga ama hooyooyinka casrigan marka reer magaalka ah barigii hore hooyooyinka reer magaal iyo reer miyi intaba ilmaha waa la xambaaray jiray laakiin waayaan waxa soo baxda hooyooyinka qaar badi iyaga dhan lama dhigi karo inana ilmaha xambaarin qaarka marka xambaarana kuwa marka xambaarana in marka lagu xambaaro qaab casriya ilmihii hore loo soo xambaaro marka hore loo soo xiro dhaqanka hooyinka Soomaalida laba qaab baa loo xambaara ilmaha qaabka koowaad waa qaabka sidaana oo ilmaha hore la soo marinayo qaybta kalena waa qaybta dhabarka la marinayo ilmaha halka waa la fahmayaa ilmaha halka dhabarka lagu qaadayo inta badan ilmaha waxa dhabarka la saaraa hooyada marka ay safar dheer galayso socod badan uu galayo ilmuhuna uu yahay ilmo adugu ilmo adaga kale uu yahay uu sanahay ilmo bilooyin jira marka ay dhabarka qaybta dambe lagu xambaaraa laakiin markuu ilmuhu ilmo bilayar jira uu yahay hooyaduna ay meelahan dhadhow kale ay joogto ariga kale waxyaabahan meel yar kaga soo laabanayso hore ayaa loo qaadaa muhiimadda marka maxay tahay muhiimaddu waxay tahay ilmaha inaan xambaarno hooyooyino xambaarku ilmaha faa'iido badan buu leeyahay tan koowaad waxay tahay horta ilmaha uu ku adkaadaa oo ilmaha xambaarka la xambaarayo ilmaha adag buu ku noqonayaa tan kalena waxay tahay anigu waxaan u arkaa raxmad ilmaha intuu markaa asaato adiga laftiga naxariis oo dareemsa hooyo naxariis badan baa tahay adiga ilmahaaga waa soo heshanaysiin ilmaha wuxuu ku noqonayaa inta badan ilmaha la xambaaro ku aragteen inta badan hooyinka uu ka dabo ooyaa ama aad buu u jecel yahay si kastoo ta hooyo ilmeed way jecel yihiin hooyo ilmeed ma nabca ilmana hooyadii ma nabca laakiin anigu waxaan leeyahay ilmaha wax badan bay ka helayaan ilmaha la xambaarto yani hooyooyin badan waxa arkay ilmaha ku xambaaranaya qaabkan hore loo xambaarayo qalabka la keenayo adinku wadna qurux badan yahay horta qof walba deeq u suulay laakiin xambaarka aniga ila quruxda badan leh oo ilmaha aad ku xaragoon karto oo ilmaha inta sida u qaato aad ku xaragoon karto waa xambaarkan oo kale ilaahay amarkiisa aniga ilma qurux badan ilmaha hore lagu qaadanayo daanyar masita loo ekaanaya ma fahanteen marka daanyarku kale waa xayawaanka waa xayawaan ilaahay ugu talagalay laakiin bilaadanka xayawaanku sembir way kala duwan yihiin marka mid kale ilmaha marka hore u qaado halka suunka u xirto hadaad dhacdo ilmuhu ka horeey xigmad badan waa ku jirta xambaarka sidaana koo horta ilmaha inaad hooyadii ay sidaas surka ugu celinayso oo markuu bilaa shir hooyadii sida ay surka ugu haysato maxay tahay ilmuhu waa celinaysaa waa taxadar dhabarkeeda markuu jirana inta badan hooyadu haday kufto ama mar walba uu ka taxadir badan yahay xambaarka halka lagu qaadan uu ka taxadir badan yahay sidoo kale waxa arkaysaa hooyooyin ilma istaal bay u qaadayaan ama meel bay la aadayaan booqasho kale la aadayaan ilmihii sintay ku qaadayaan yani waa dayac inta badan hooyinka waxay u arkaan waxyaabo laga tagay waxa waa laga gudbay anigu waxaan dhigi karaa runtii wax walba dhaqankeena wax ka qurux badan
oo ka wanaagsan way jiraan caadooyin xunxun oo dee Soomaalidu bariga hore laga jiro laakiin wixii aan xumayn ee wanaagsan waa inaan ka tagin runtii aniga laftigayga hooyo ayaan ahay xambaarkana waan jeclaa weligay yani anagoo gabar yar ayaa ilmo soo xambaari jiray intaan waan arkay mar walba waxaan dhigi karaa hooyo walba naxariis badan inkastoo hooyo kasta ay naxariis badan tahay waxa wanaagsan ilmaheeda inay markaa jacayl dareensiiso naxariis dareensiiso ilmaha markaa ugu dambeyn yaan ku dheeraane maanta waxaan ilmaha yarka aan u soo xambaaray ilmaha anigu horta ma dhalin waxaan oo ilmo yar ima joogan hadda la xambaari karo laakiin muhiimadda ariga ula soo raacay hooyooyinka miyiga inay ilmaha markaa ay xambaartaan dhaqankiina uu xambaar ku yahay iyo inaan hooyooyinka magaalada jooga aan ku dhiirigeliyo maxay tahay waana wax aad u qurux badan ilmaha inaad xambaarato marka waxaan leeyahay ilmaha xambaarta ku xaragooda xambaarka kala ilna qurux badan laakiin wallahi ma qurux badna Soomaalidu waxay ku maamaadaa hubkaaga iyo hayintaada waa lagu xaragooda ilmihiina marka ha ka faaninina yani xambaarka ha ka faaninina hadhiina islaamii hore bari hore wax laga tagaya waa xarago waan xariis xambaaro si walba tahay gabadha ugu dambaysa gabadha ugu xaragada badan la tahay wallahi ilmaha sidan way qurux badan tahay way xaraga badan tahay waa ilmahaagi ku faantan qaad labis kasta qabtay si walba tahay sidaan ilmahaaga u qaado waa wax aad u qurux badan ilaahay noo day intaan awlaad dhalin waxa leeyahay awlaad saalix ilaahay subhanahu wa ta'ala ha siiyo inta kale awlaad dhashan waxaan leeyahay ilmahan xariis dareensiya oo qaada oo xambaara oo bodbootiya oo u heesa oo waxaan ku yiraahdaa ilmaha waxa weeye waa in xariis lagu barbaariyaa oo ilmo xigmad inta badan ilmaha miyiga waxa la yiraahdaa waa ilmo xigmad badan xigmadu ilmaha kuma dhalan hooyadu waxa weeye marka uu yar yahay way qaadaysaa sidaan bay u xambaaraysaa way u heesaysaa waxaan ku ilmihii xigmadii waxa weeye waa ilmo xigmadii lagu beeray oo waxa weeye maskaxda laga koriyo jacayl dareemay oo waxa weeye maxay tahay ilmihii maskaxda ka koray laakiin inta badan waxa dhacaysa ilmihii in jiifka caani lagu siiyo masada afka loo geliyo halka uu iska yaalo hadda markuu soo kacana telefoon la iskaga dhiibo ama TV loo shido marka ilmihii goorma maskaxda ka koriya goorma noqonaya ilmo aqli leh ilmo maskaxiyan ka dhisan ilmo maxay tahay nashaad dareema markii hore caana boor la siinay jilacsan masad la siinay lala jiifinay marka laga mashquulsana ama masas laga daawanay ama meelaha kale laga danaysanay ilmahan waqti la siiyay weeye hooyinka miyiga jooga way ka shaqo badan yihiin runta markii laga hadlo way ka tacab badan yihiin kuwa magaalada jooga haddana ilmahooda way sitaan ma dhigaan way qaataan maxay tahay way badbootiyaan ilmaha markii caanaha siiyaan waa ilmaha waa la badbootiyaa insha Allah inta si doona inuu yarka uu noo hurdaa marka si walba tahay hooyooyina waxa weeye ilmo aan soo saarno ilmo dhisan oo dhan walba ka dhisan aan soo saarno ariga hadda cabaar waan daajinay ilmaha yarka intuu hurdo waxa rabaa caano fresh caano booraha soo qas biyaha u kululay midna ma jirto koobka yarka u jeedaan masasadna ma jirto koobka ayaan refresh u lisayaa insha Allah waad ila arki doontaan عباسة أنا كل ساعة وكاس وكاس ربع أملي عباس سويتي دنا أنا كل ساعة عباسة كأوش هذا أنا سرد كل شيء أصحاب تقالي أرت عيني والسنين ونور ديمان طبعا واحد فرسنين مركب على كاسين يا توتي حفادي وحا أخبر كراك ما شاء الله قام استعمال يا أصحاب تقالي waxaan ku rituuji iyo xafaayad iyo waxaan ku waxa laga ma yaqaano Soomaaliduna waxay aqoon jirtay ma ahan marka asxaabta qaaliga horta ilmaha yarka hadda maanta dhan baan xambarsaneen marka waa la majisaaraya bal inuu kaasho mana igu kaashayo wuxuu jiraa daahan 5 bilood inta badan dhaqan waxa ah ilmaha markuu 40 ka baxo in la majisaaro waxa loo yaqaan majisaarid iyo luga saarid intaba waa majisaarid iyo luga saar yani ilmaha luga saar ilmaha ama majisaar waxa weeye waa barti wuxuu u galiyaa booski tuujiga ama xafaayada ayuu u galiyaa ma sha Allah ilmaha marka inta badana ilmaha miyiga waxa arkaysa isagoo marka hal sano ka yar inuusan isku kaashin uu oynayo ma jiraan unaha yarka 5 bilood jira markii dhabta lagu hayo ay kaadi qabato uu oynayaa marka waxa leeyahay muxuu oynayaa ilmaha yarka ma kaadi baa haysa way daawanaya naagta indha xir maxay isleeyahay marka waxa aad u wanaagsan
إن كستو ضد كان هرت أي كسر عدني سو إن ما لما تصار إن دول عيد سحالة إن لتشوجو دم مقالة مركل لتشوجو ده قفل بو قرنيا بمقالة وقرنيا لكن تنا وداعن كنا أنت أول قد أركين سكبرتها إلما والله متصارة مركو صعد بالله بنا إلما ما يسكو كادينا يو ما نسكو سحرانا يو وإلما إذا بلو أغلاغله يسوي يرو لحنبارسي أيو أين يا مركي كادي أم سحرة قبته مركا ما شاء الله وأنا قال كأنوني متصارنا مجسار كان وانا دماضي واتاس بميا ويا عباسو ما انت ناق انت صاحلتي اتوضت يا انا ما انت وتصاحب وتقول لا لا يابا انت صاحلتي ايوه وهاي تالي وهاي صافتك ده وهذا كام ديره عباس هاي كام دير يا marka ma sha Allah ilmihi miiga runaantii aad bay ugu wanaagsan ilmaha yarka miiga inay ku dhashaan hawadaas badana ilmaha halkan burkiito maxay tahay xanuunada ilmaha ku dhaca calool xanuunka lagama yaqaano waayo waxa weeye hawada ilmaha uu helayo iyo caanaha uu cabayo fresh iyo hooyada uu nuugayo oo waxa ay cunto fresh cunaysa intaas ba ilmaha maxay tahay way saaciday cabaas caana siisanayna marka waa la habayaa ilmaha marka habid baa liraa mar hadduu caanaha qabsan karin waa habitaan waa la habayaa marka bismillaahir rahmaanir rahiim cabaasow caanaha cab mar dhabu naas cabay cabaas oo hooyadiis caanaha caloosha u soo buuxisay waxaa intusay qaabka caanaha loogu habo marka caanihi wuu iga diiday naas inta badan cabaa caanahana wax yar buu ka cabay ilmaha markii caanaha la siiyo waa lagu badbootiyaa allah aye ugu celiyaa الله عدو جبي عباس هو داس اسك داونيا قرخداس اسك داونيا ادونكاس اسك داونيا عباس متقنا عباس هويدا وان ka xadaya waan kala dhuumanaya ya waan kala dhuumanaya hooyada inta adeynaysa magaalada oo ufta oo aan boolaha adeynaysa anta hooyada iyo aliga iga wadada unya waadi ala way qaslay asxaabta qaaliga marka waan salaamayna waxa weeye arigii baan la joogay galabtay cabaas baan hayaa cabaas hooyadiiga ma dheera waxa weeye way ag joogtaa waa kaasa ya waan tagay marka waxaan rabaa inaan tuso ilmaha sida loo xambaaro gabdhaha qaar baa waxa ku adag obeeya wanaagsanaya oo cabdiyo meel laga carabay oo caruurtii laga xambaartay والله ودن عراري واين والله ودن عيلو دمانين وقبابو قارديوا وقرتي راكتا باردوا وقديق رارتا ومروا هوبيا ومركا دلتو دواغدي ودوليا دحنباي قدوشي ودولكاي وداي افتيماي ودرواياي قدريري ودرتاي ودمقوشي معاباكا صدعالي وصدعالو صعد كراقي ومقالي باروري واروران كراقي ومديلي بارورتي ومديش أذان لبوحين ومناسكي باقلوفي وقلوفو قدل بديدي ومهويا كعروتي وما أبا كعنانتي انت سنانيك قدري أصحاب قالقا وادنك أوتشي أريقا واسوع الرابيي أريقا وادنك أوتشي هذا وانسوه هويي ما شاء الله أكو قوليستي ما شاء الله دي أفكار أمان كاقمو الرئيسان مغلق كده قبر عادي مين ونيا جيركا واوتا أريقا وانسوه هويي marka walaalaha qaaliga ma sha Allah maghrib bay noqotay guriga uu dhow yahay waa kana
arigina waa anigaa keenay ilaahay baa mahad iska leh nuunaha yarkaana waa anigaa cabaas yare nuunaha yarka cabaas baa liraa iska barta cabaas yare waxaan kuri maasha allah ilaahay ka dhigo mid diintiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa anfaca ilaahay subxaana watacaala ka dhigo nuunaha yarkaa markaa mawduuceena intaan buu ku egyahay maanta ari raacideeni jawiga quruxda badan leh khayr badan baa idin rajeynayaa gabdhahan waxa la ilmaha la xambaaro war ilmaha xambaara hooyanimo sidaa u dirintid naxariis ilmahaaga u dareemo adna inaad hooyataas ku dirintid ilmaha xambaara amarna maahan laakiin de waa sida hooyada Soomaaliyeed sida ay dhaqanka ay u leedahay ama dhaqanka ay u soo lahaa jirtay gabar walba maanta waa la soo xambaar adiga dii hooyada ku soo xambaartay sabab ilmahaaga ugu xambaarin intaasna waa iska waana cabaasira waxaan leenahay mac salaamo